السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دماتي ولا ليلة سوداء وحين صحافة كاركينا إن بيش ماي كوديدا ودك الشينه وفصحى إن قارد أفريقيا أي سي زيرو تعرفه وجسور دوفين كرتو بدأ عدهودا تاس أو فرصة جناعسي أو وين إن أي قارد أفريقيا وهلي دونتو إن بدأ عدهودا أي كوجي سودك الشينها سبلا عشورة أي أصوب حضي حدا بك إنجا صومالي أهان محين أدوفين كرنا سوقا محين جين كرنا محين بيران كرنا halkee waxaan ka bilaabi karnaa mustaqbalka dhow ee hadda maxaa fudud in China la geeyo mustaqbalka fog halkee lacagtu ku jirtaa sidee uga diyaar garoobaynaa su'aalahaas ayaan rabnaa in insha Allah muuqaalkan ku falanqeyno haddii aan adigu ku weydiiyo fursadii ay asleedahay gobolka aad hadda joogtid ugu dhow oo suuqa Shiinaha ay tamyadan in xusi doono loo dhoofin karaa hoos igula wadaag si gaar ah ayaan jeclaan lahaa inaan ra'yigaaga u ogaado walaalayaal فرصة كواد أي شينها وحيلها ندوفين كرنا أو كميدا ودك الشينها سين لوضع الصعنة وودك النقالها أو لبعض الدونك هو جامينية وورشد الدونك وحيلا بدن أيو يبسدا وإنت سوق بلايين أو دولار كسوقاتها إنك كصومالي أهان أي تمية بدن أي ندوفين كرنا أي تمية يجو أين أوردرهان أين أحسين وحكميدا وحيلها ندوفين كرنا وشينه سوق توكله سنسنتا وحن لو يقال نسسمي سيسنتا أيو شينوه صور دوفسدا بدعاده صور دوفسدا يكمتهاي سيسنتا دول كنا سفي عنا يجو بحضا يدو السليد يدو أو مراء وحيلها ندوفين كرنو أي كمتهاي وحيلها ندوفين كرنو شينها وحكمدا وقتو دعرتو كله أوليفيرا دا هدي أن دول كنا جد أوارد ويا أو سفضود وقبحه دعرتو كله ورشده عافيماتك أيو استعمالان وحيلها أين دوفين كرنو ومستقبلك أين بيران كرنو أو شينها سوقي سعافماتك أين أدوفين كرنو أي كميتهاي وحيلها يدوفين كرنو شينها وحاكمدا سيدا أين لوضع الصعنو وحشينوه برشدية دار بدن يوحيلا بدن ماسا هدي اللي هيرجليو تانري فاكتوري أما ورشدي هرجها يسامها وحيلها الصومالي دوفين كرتو هرجها أي كمدا سوق شينها أي جين كرتو وحيلها ولا ليه سيدو كلا شينها لو دوفين كرو waxaa kamida ma waxa loo yaqaano malmalka ama beeyada frankincense-ka la dhaho oo iyada oo saliid laga miiray iyo iyadoo laga miirin intaba ay u dhoofin karno hadii wadanka lagu warshadeeyo iyo hadii ma artay iyaga oo roo ah iyo labadiisaba loo iibgeeyo oo suuqooda caafimaadka ay aad ugu isticmaalaan waxyaalaha geedaha abaaraha ku baxa oo kale oo shiinuhu aad u isticmaalo caafimaad ahaan ay dhulkeena ku beeri karno ee laga tijaabiyay geedka moringaha ayaa kamida geedka moringaha hadii ay beerno shiinaha Soomaali haday nahay way u dhoofin karnaa waxyaalaha fudfudud malabka oo kale organic honey shiinuhu wadamada malabka aad u soo dhoofsada ayuu kamid yahay buuro badan been leenahay duxooyin been leenahay dhul beereed been leenahay hadii ay markaa malab oo kale malab la isku haleyn karo ay soo saari karno intaasoo matirgitana malabka ayaan shiinaha isagana ayn u dhoofin karno waxyaalaha hadaba walaalayaal lacagta xoog leh ku jirto oo shiinaha balaayiin dollar ay uga sameyn karno waxa kamida kalluunka sectorkaas hadaba waxyaalaha kalluunka u baahan yahay waxa kamida in marka kalluunkii loo dhiso doomooyin matooro fiican leh oo qaboojiyaal leh oo baraf dhaliya leh oo 20 tan 30 tan 40 tan kalluuna badda ka soo qaban kara sidoo kale kalluunka marka la soo qabtana in storage warehouse facility oo ma aragtay cold storage ah loo sameeyo qaboojiyaal ah oo si fiican oo baraf ah loo kaydin karo oo nadiif ah oo standardka waxyaalaha aad iyo aad permitka ay u baahan yihiin waxa kamida in waxaan caafimaad ahaan uu haysto shahaado standard la tijaabiyay record fiican leh dabagal fiican leh marka waxyaalaha u dhoofin karno waxa kamida kalluunka waa sectorka ugu muhiimsan ee ugu dhaqaalaha ugu badan shiinaha cunto ahaan ay inooga soo xiroon karto waxyaalaha sidoo kale walaalayaal ku xiga waa warshadaha hilibka hada warshad baan arkay berbere hilibka loogu talagalay in hilibka qasho oo hilibka oo baraf ku jira oo diyaarsan ay wadamo u dhoofiso marka warshadaha hilibka oo kale laftirkoodu hada Brazil hilib badan bay u dhoofisaa Mareykanka hilib buu dhoofiyaa galey buu dhoofiyaa marka inaguna hilibka waan dhoofin karnaa laakiin waxay u baahan yihiin baalayiri in xoolahaasi ay yihiin xoolo karantiil galay oo talaalkoodii lahaa oo cudurka lugaha iyo afka iyo waxyaalaha xoolaha ku dhaca ka badqaba standard sax maray si sax loo qalay si sax loo kaydiyay
oo kale hilibka xoolaha ayaynu u dhoofin karnaa iyadana oo fursad aad iyo aad u sareysa oo shiinaha balaayiin dollar ay dadka uga soo xirooto maadaama waddanka ogtihiin waa dadka ku nool bilyan iyo dheeraad marka fursadahaas walaalayaal ayaan u dhoofin karnaa shiinaha waxyaalaha kamid aynu dhoofin karno hadda walaalayaal haddii aan maanta halkan isdhahno gudagala badeecadaha shiinaha u dhoofin karno tiro iyo xisaab male waxa kamid ah basbaaska ayaa kamid ah haddii basbaaska dhulkeena si fiican ay uga baxaa waxaan arkaynaa ayaama dhexdaas internet meesha ku soo bandhigay nin dhalinyaro ah oo basbaaska cas intuu beero qalajiyo paprika oo kale xawaash ah isagoo budo ah shiinaha u dhoofiya oo $100,000 ka shaqeysta waddanka Rwanda ee bariga Afrika ku yaala waxaan saxaafadda ka arkaynay Tanzania oo intaas balaayiin dollar ugu dhoofisa afakaadhada waxaan arkaynaa Uganda iyo Ethiopia oo kafeega shiinaha u dhoofiya marka inaguna sidaas oo kale ayaan waxyaalaha qaar ugu dhoofin karnaa waxyaalaha qaar sida hilibka xoolaha kalluunka sharciyo badan ay u baahan yihiin iyo caafimaad iyo hubin laakiin waxyaalaha sida cosmetic ay u isticmaalaan haday noqoto castor geedka la dhaho castor oil ka saliida castorta laga miiro oo abaarta ku baxa haday noqoto dacarta oo kale hadii ay noqoto maringaha oo kale hadii ay noqoto basbaaskaas oo kale hadii ay noqoto sinsinta oo kale hadii ay noqoto xawaashiyada noocyadeeda kala duwan oo kale waxyaalo badan diirta oo kale galeyda oo kale waxyaalahaas oo dhan shuruucdoodu way fududahay baa la yiri intaan baaritaanka ku waday yani waxyaalo badan shiinuhu kama rabo marka waxyaalaha sida fudud loo process gareynayo marka waxyaalahan u baahannahay waxa kamid ah seen u dhoofino oo shiinaha suuqaas si isku haleyn waxay nooga iibsado dadka Soomaaliyeed marka koowaad in ay dhisaan infrastructure-kii ama se wixii wax la isku haleyn lahaa supply chain wadan kaama qaadanayo waxaan la isku haleyn karin oo sida inta wax mar la beero la iska joojiyo mar cilad timaado wixii waa in wax la isku haleeyo oo beero 100 hektar 200 hektar 50 hektar oo kale la beeri karo beerahaasi ay leeyihiin warshadihii loo baahnaa si loo process gareeyo oo haday qobajiyaal u baahan yihiin haday qalajiyaal u baahan yihiin haday warehouse lagu kaydiyo u baahan yihiin in standard haday qalab sax la isticmaalo u baahan yihiin in intaas loo dhiso waa qodob muhiim ah nidaamka iyo maamulada iyo dawladaha iyo wixii marka ay meesha laga dhoofinayana in dekadii ay leedahay facility wax lagu store gareeyo doomo chill yani maraakiibtii iyo containeradii wixii qabow qaadi jiray oo kale intaasna uu jiro oo qodob kale oo muhiim ah marka guud ahaan walaalayaal waxaan rajeynayaa maanta inaad fikrad ka hesheen suuqa weyn waxyaalaha aad u beeri kartaan ama si aad uga faa'iideysan kartaan lowska ayaa kamid ah marka waxyaalo badan hadii halkan xusno ilaa 30 item ay gaarsiin karno ayaa jira laakiin waxaasi in si sax ah loo beero si sax ah loo kaydiyo standardka sax la raaco dad khabiir ah la tasto ayay kamid tahay anu nin sikriye waxaan aqaanaa wadamada Yurub ka yimi oo 65 hektar beer maamula oo ku takhasusay waxyaalaha commercial farming oo kale oo professional ah oo system weyn oo intaas oo kun oo tan ah kula dejin kara wax lagu soo saarayo oo ganacsiyadaas oo kale hadda moringaha geedaha ma artay la dhaho eucalyptuska bahrasaafka muuska liindanaanta waan ka tagay liindanaanta qallalan oo kale dry lemons oo kale waxaas oo dhan commercial ahaan la dhoofin karo khabiir ku ah ayaan hayaa khabiirkaas markaas si professional la talin hadaad u baahan tahay emailkaas contact@somleaf.com baad emailka ay ku soo diri kartaa khabiirkaasi khidmad baad ka bixinaysaa isna la talin buuxda ayuu kaaga sameeyaa si aad mashruucaagas oo kale u hirgelin kartid waa dadka professionalka ee raba inay maalgashiga ay ka faa'iideystaan hadii kalena save garayso qof aad mashruuc wada gali kartaan oo mid kamida mashaariicdan suuqyadaas hadhowto uga faa'iideysan kartaan mustaqbalka la sii wadaag insha Allah walaalayaal waxaan rajeynaynaa in asaageen ka harin wadamada bariga Afrika ee dariskeena ee malaayiinta dollar suuqyada dibadda ka soo shaqeysanaya inay inaguna wax isaga tarno oo liindanaantii sinsintii wuxuun ay qaadno oo shiinahu marka wax inoo soo dhoofiyo inaguna aan dib maraakiibtii wax ugu rarno oo lacag ay nooga soo laabato muuqaalkan intaasan ku baraarujinayay hadda inaba midun ka heshay fadlan aad halkan soo gaadhay like saar hadaad tiri qaybta dambe soo gaadhay like baan saaray si gaar ah love kugu saari doonaa insha Allah hoos igula wadaag commentiga ولكن سكري عبد الله علي انت المقال xiga ku kulmi doono السلام عليكم ورحمة الله وبركاته